Shureya Akin Akinezu waa jilaa Turki ah oo caan ku ah inuu jilo filimo jacayl ah oo dareen taabad leh. Waxaa ku taqaanaan in badan oo idin ka mid ah inuu jile ka yahay filimka musalsalka ah ee Hargai. Haddaba maanta waxaan ka hadlaynaa taariikhda aktarkan dunida ay la yaabtay habjilinkiisa iyo xilligan macluumaadyada la xiriira noloshiisa dhinaca waxbarashada. Muxuu qaban jiray ka hor intii uusan ku biirin masraxa filinjilista, xiriirkiisa jacayl ee xilligan iyo macluumaadyo badan. Balse marka hore muuqaalkan like saar si uu u gaaro dad badan annagana ay dhiirigelin noogu noqoto. Sidoo kale janaalkaygan ku soo biir oo subscribe saaro si barnaamijyadan taxanaha ah ee aan bilaabi doono oo maanta kani ugu horeeyo aad ula socoto. Mahadsanid. Jilaagan la loodin la'yahay xidigan jaceylka ku caan ka ah ee filimka Hargai ku metelaya magaca Miran. Magaciisa dhabta ah sida hordhaca aan idinkugu sheegayba waa Shureya Akin Akinezu. Waxaa dhashay aktarada caanka ah ee Özlem Akinezu oo dalka Turkiga ka ah xidigad la loodin waayay. Aktarkan waxa uu dhashay September 22keedii 1990. Ninku ma aha nin weyn, waa 30 sano jir. Xirfadiisa aktarnimo waxay soo bilaabatay sanadii 2014 markaas oo uu la shaqeynayay shirkadda filimada Azrael Future Film oo dalka Turkiga laga leeyahay. Ma uusan noqon xidig weyn tan iyo markaas, laakiin markii door muhiim ah laga siiyay filimkan weli jiristiisu ay socoto oo dhowr jeer oo hore hakad u galay sabab la xiriirta koroonaha dartiis, shaashadaha caalamkana qabsaday ee Hargai wuxuu Shureya Akin Miran noqday xidig weyn oo caan ah. Bartiisa Instagram oo kaliya mar qura waxaa soo raacday 2.7 milyan oo qofood. waa arin asaga qudhiisa uu la yaabay sida durbaba uu magaciisa ugu faafay dunida. Haddaba Miran xiriir jacayl oo qarsoon ayuu lahaa. Intiina filimka daawata aad uma fahansanidin noloshiisa xagga jacaylka oo uu leeyahay, laakiin waxaad aragtaan hab jacayl aan caadi ahayn oo uu filimkan ku jiray. Cidima ogeyn, laakiin jacaylkaasaasi waxa uu banaanka yimid bishii January 2020 markii uu dalka Faransiiska isaga oo ku sugan oo dalxiis ama fasax u jooga uu guur u soo bandhigtay. Waftuma qofku u soo bandhigtay qof kale ma ahan waa aktarada filimka Hargai la jilaysa ee Sandra Bestemelian, taasi oo ka aqbashay Akin dalabkiisa guur. Haddaba toorahan iyo atiriishada filimkan adag ee jacaylka ee aadka dhuuxa iyo lafaha dadka ka galay ee Soomaaliya meelo badan laga daawanayo ayaa hadda ah lamaane aad isku jecel, taas oo filimka xiise gaar u sii yeeshay. Akin iyo Sandra waxay isgaranayeen 7 sanadood. Hadda waa 7 sanadood waxa ay xiriir jacayl oo daaha gadaashiisa ah wadaagayeen muddo 5 sanadood ah. Lamaanaha ayaa hadda qorsheynaya inay aqalgal aan caadi ahayn dhigtaan maadaama koroonuhu saameeyay markii hore xafladihii waaweynaa ee ay damacsanaayeen inay arooskooda ku yagleelaan. Waa hagaag, bal inta aan u guda galin taariikhdiisa waxbarashada ee aktarkan ee qotada dheer, waa maxay horta micnaha uu filimkan xambaarsan yahay? Intiina daawata ma ogtihiin magaca filimkan iyo waxa uu yahay haddii af Soomaali ahaan laga dhigo? Maxay sheekada filimkani ku bilaabatay? maxaana lagu matalayaa sheekadan oo ay qusaysaa? Directorka sheekadan waa maxay waxa uu ka soo munguuriyay sheekadan? Ma sheeko hore u dhacday oo qof ku dhacayba mise waa sheeko matal ah oo iyada uu iska abuurantay? waa idin kaga sheekeynaya hadda nagu soo biirtay janaalka. Marka hore like saaro. Sheekada filimkan waxaa lagu magacaabaa Hargai, kaas oo haddii af Soomaali loo dhigo u dhigma jacayl aan suuragal ahayn, impossible love. Sheekada musalsalkan ayaa ku saabsan ama laga matalay nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Miran Asalambi, kaasi oo qoyskiisa ay u dhinteen waxyeelo u geystay nin cadootooyo u hayay.
haddaba si uu uga aarguto wiilkaasi yaree Miran la dhihi jiray dilka qoyskiisa loo geystay, Master Aslambi oo aan ka wada Miran wuxuu go'aan ku gaaray in uu duulaan tago ninkii dhibka u geystay, iyadoo uu ka soo galayo xagga gabadhiisa oo ah qofka kaliya ee uu nolosha jacayl ahaan maantadan la joogo jecel yahay sida filimka lagu metelay. Filimka ayaa haddaba ku saabsan sidaasi. Aan ku soo noqono aktarka oo maanta kaligiis aan ka hadlayno. Suraya wuxuu cilmiga xisaabta ka soo bartay jaamacadda California Berkeley ee dalka Mareykanka, halka uu college-ka dhinaca jiritaankana uga baxay dalkiisa Turkiga gaar ahaan Ankara College. Atoorahan aan caadiga ahayn ayaa kasbaday taageerayaal badan oo dunida meelo kala duwan ku nool, qaaradda Yurub, Asia, wadamada Carabta iyo Afrikaba. waxaana ka mid ah meelahaasi dalkeena Soomaaliya. Musalsalkan Hargaay ayaa hadda si aan kala go' lahayn looga daawanaya magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka muddo ku sii simanba 2 sano. waana mid ka mid ah filimada ugu xiisaha badan ee laga daawaday marka laga reebo filimkii Nuura iyo Maria Clara oo iyaguna taariikhahoodii aan idinkaga hadli doono aktaradii jilayay noloshoodii hoose. berito waxaan idiin soo gudbin doonaa taariikh nololeedka iyo midda waxbarasho iyo xiriirkii hore ee atirishadan filimkan hadda xiriir wadaaga ay yihiin aktarkan. Santira xiriir hore ama guur hore miyay soo martay oo ka horeeya aktarkan hadda guurka u soo bandhigtay, maxay qabataa nolosheedii hore iyo taariikhdeedii. haddii muuqaalka aad ka heshay janaalka ku soo biir, aragtidaadana inoogu reeb ama noogu gudbi qaybta commentiska. mahadsanidin.